siyaasiyiin iyo waxgarad kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa taageeray go'aamadii ka soo baxay shirkii looga hadlayay maamul sameynta gobolka Hiiraan oo ay dhawaan magaalada Beledweyne ku yeesheen xildhibaanada iyo siyaasiyiinta gobolkaasi sida warbixintan oo magaalada Muqdisho inooga soo diray Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaag oo halka Soomaali Channel laga soo warama kadib kulan ballaaran oo isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee beelweynta gaaljecel ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayna qayb ka ahaayeen xubno jagooyin wasiir ka soo qabtay xukuumadihii dalka soo maray ayaa waxa lagu taageeray go'aanadii ka soo baxay shirkii ay dhawaan xildhibaanada siyaasiyiinta waxgaradka beelweynta gaaljecel ay ku yeesheen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo ay ka soo saareen qodobo ku aadan aragtida ay ka qabaan maamulka cusub ee la doonayo in loo sameeyo gobolka Hiiraan kulankani oo ay ka hadleen qaybaha kala duwan ee ka qaybgalayaasha ayaa sidoo kale gabagabadii waxa laga soo saaray war saxaafadeed iyo baaq dhowr qodob ka kooban inaan garanno danta aan isugu nimid aan meesha u fadhino inaan garanno waa ayadnay inaan ka tashano aayaheena danteena inaan garanno oo aan ka tashano shirka ka dhacay Hiiraan ma garanaysaay umada ama beelweynta gaaljecel danaheeda ay ku fahamtay ee ay ku garatay wixii ka soo baxay ama ka soo bixi doono waxaan waa raacnay waxaan taageersanahay haddaan nahay nabadgobolada beesha gaaljecel shirkii ka dhacay magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan 15 bishii Oktoobar bisha lagu jira shirkaas qodobadii ka soo baxay iyo wixii ay ogaaska iyo xildhibaanadii iyo wasiiradii iyo siyaasiyiinta ay ku gaareen iyo shacabkii meesha joogay waan taageersanahay waan haddaan nahay nabadgoboladii muslimiintii joogay magaalada Muqdisho jecel waa maqanyahay cod dheer oo saxan leh ayaa waxaan ku leeyahay gobolka Hiiraan haddii kalsoonida beesha dowladda ay kala soo noqotay micnaheedu ma aha gaaljecel inuu qaran dumis yahay gaaljecel waa xorriyadoon gaaljecel waa qarannimo doon qodobka koowaad kadib shir ballaaran oo ay isugu yimaadeen beelweynta gaaljecel kana dhacay magaalada Soomaaliya Muqdisho kasoo tixraac u ahaa shir ay beesha ku yeelatay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan bishii markay ahayd 15 Oktoobar 2018 waxay soo saartay baaq ku wajahan xal u helidda Soomaaliya number 2 ama qodobka labaad kadib markaan aragnay cadaalad-darrada soo jirtay muddada dheer weliba ay wadaan hoggaanka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ee ay u horeyso awood-qaybsiga saamiga siyaasadeed halkaas waa fahamteen oo marinay kadib markaan aragnay in cabashada beesha ay u gudbisay madaxda sare ee dalka ay dhagaha ka furaysteen rukuutin iyo falaqayn kadib waxgaradka beesha gaaljecel ee magaalada Muqdisho waxay ka waacsadeen in baaq ka soo yeeray gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne uu yahay baaq xaq ah. Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaag Soomaali Channel Muqdisho. siyaasiyiin iyo waxgarad kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa taageeray go'aamadii ka soo baxay shirkii looga hadlayay maamul sameynta gobolka Hiiraan oo ay dhawaan magaalada Beledweyne ku yeesheen xildhibaanada iyo siyaasiyiinta gobolkaasi sida warbixintan oo magaalada Muqdisho inooga soo diray Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaag oo halka Soomaali Channel laga soo warama kadib kulan ballaaran oo isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee beelweynta gaaljecel ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayna qayb ka ahaayeen xubno jagooyin wasiir ka soo qabtay xukuumadihii dalka soo maray ayaa waxa lagu taageeray go'aanadii ka soo baxay shirkii ay dhawaan xildhibaanada siyaasiyiinta waxgaradka beelweynta gaaljecel ay ku yeesheen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo ay ka soo saareen qodobo ku aadan aragtida ay ka qabaan maamulka cusub ee la doonayo in loo sameeyo gobolka Hiiraan kulankani oo ay ka hadleen qaybaha kala duwan ee ka qaybgalayaasha ayaa sidoo kale gabagabadii waxa laga soo saaray war saxaafadeed iyo baaq dhowr qodob ka kooban
inaan garanno danta aan isugu nimid ee aan meesha u fadhinno inaan garanno waa ayadnay inaan ka tashanno aayaheenna danteenna inaan garanno oo aan ka tashanno